goordhow waxaa waddankeena laga qodi doonaa ceelal shidaal ah Soomaali qani ah ummad oo wada taajiri doonta mise waxaynu horseedi doonaan caqabado hor leh qaar ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee la kulmay wadamada Afrika ee isku dayay inay ka faa'iideystaan kheyraadkooda dabiiciga ayaan idin la wadaagi doonaa khilaaf siyaasadeed iyo amni darre ayaa ku badan dalal badan oo Afrikaan ah oo isku dayay inay ka faa'iideystaan kheyraadkooda dabiiciga Nigeria waa mid ka mid ah dalalka ugu qanisan Afrika marka la eego shidaalka iyo gaaska dabiiciga gobolada shidaalka laga soo saaro ee Niger Delta waxaa ku badan kooxo hubaysan iyo jabhada mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda iyo shirkadaha shidaalka shisheeye qowmiyadaha deegaanka waxay sheegteen inaysan helin faa'iidada shidaalka taas oo keentay weeraro ka dhan ah xarumaha shidaalka taasoo sababtay qallaase amni oo ballaaran iyo burbur dhaqaale oo halis ah musuqmaasuq baasahan ee ku salaysan nidaamka dawladeed ayaa Nigeria ka dhigay dal ay adag tahay in shacabka guud ahaan uu ka faa'iideysto dakhliga shidaalka badanaa lacaga badan oo shidaalka ka soo gala dalka waxay galaan jeebka siyaasiyiinta iyo madaxda sare ee dalka waa huwaal Soomaaliya way wajahaysaa khilaaf siyaasadeed iyo xasilooni darre oo u dhaxeeya dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo dadka deegaanka sida loo qaybsanayo dakhliga shidaalka iyo cidda gacanta ku haysa kheyraadka muhiimka ah sidoo kale waxaan la kulmi karnaa in dakhligu ay koox yar oo awood leh isku daya inay dhaqaalaha shidaalka ugu adeegaan dana gaar ah haddii aan la helin nidaam xakameyn wanaagsan waxaa dhici kara in shidaalka laga faa'iideysto iyadoo shacabka iyo dadka intiisa kale aysan helin horumar la taaban karo caqabadaha kale ee aan la kulmi karno waxaa ka mid ah isbedelka cimilada iyo yaraanshaha roobka marka gaasaska waxyeelada sida carbon dioxide iyo methane ay hawada ku bataan waxay sababaan in heerkulka uu kor u kaco kororka heerkulka ayaa saameyn ku yeesha nidaamka roobka kororka heerkulka ayaa sababa in goobaha shidaalka laga qodayo in roobku ka yaraado taasoo keeni karta in abaaro ka dhacaan inta badan howlaha shidaal qodista waxay isticmaalaan biyo badan haddii roobka yaraadaan waxay isticmaalayaan warshadaha ceelasha deegaanka tani waxay keeni kartaa biyo yaraanta deegaanka taas oo saameyn ku yeelata dadka iyo xoolaha deegaanka ku nool sidoo kale marka qaarkood biyaha loo adeegsaday howlaha shidaal qodista waxaa dib loogu shubaa dhulka ama wabiyada iyadoo aan si habboon loo nadiifin taasi oo wasaqeyn karta ilaha biyaha ee deegaanka wasaqeynta hawada iyo biyaha ee ka dhalata shidaal qodista waxay waxyeelo caafimaad u keeni kartaa dadka deegaanka ku nool